kadib saacado tartan adag oo siyaasadeed iyo bilowga mowjadaha doorashada la isku raacsan yahay ayaa lagu daahfuray doorashada guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal taasoo ka dhacday maanta magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana sheekada xiisaha la ay tahay tartamayaasha dhinacyada dhammaan dadka doorka ku lahaa iyo ugu dambeynta cidda guushu ay raacday sidaanu 24 saac ka hor baahinay guddiga doorashada ee codaynaya waxa uu ka koobnaa 25 xubnood oo ka kala yimid dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka oo iyana xubno magacowday doodaha xiisaha leh ayaa ahayd in xubnaha sharaxan ay kala ahaayeen Liibaan Maxamed Xasan oo ku magac dheer Shuluq iyo Maxamed Xasan Ciiro labaduba waxa ay gadaal ku hayeen meel adag oo noqonayo kuwa adag ee u dhexmari doono tartanka madaxweynenimada Soomaaliya Maxamed Xasan Ciiro waxa horay bishii December 5 loo doortay guddoomiyaha guddiga doorashada laakiin dowlad goboleedyada Puntland Jubbaland iyo midowga musharaxiinta ayaa diiday doorashadiisa xubnihii doorashadaba oo ay ku sifeeyeen inaysan sharciyada ahayn oo aan la marin habraaci loo baahnaa ee uu qeexayay heshiiskii 17 Sebtembar arrin kale oo xiiso leh guulaystaha hadda Mastar Ciiro waxa uu ka mid ahaa 67 xubnood oo ku jiray liiska ay soo gudbiyeen guddiga musharaxiinta madaxweynenimada ayna ku sifeeyeen in aan dhexdhexaad ka noqon karin arrimaha doorashooyinka dhinaca kale waxa lagu xirayay in saaxiibtinimo dhow ay kala dhaxayso wariyihii hore agaasimaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir sheekada ku saabsan sida uu uga soo dhexbaxay liiska 67 waa arrin aan weli daahfurnaan badan laga haynin ilaa maanta hase yeeshee tan la hubo waa in saaxiibadiisa nabad iyo nolol ay kala soo dabaasheen xilli adag oo siyaasadeed iyo inay la caarido doonidii badda taagneyd kana mid noqdo 34 xubnood oo daadka la raaciyay kana tirsanaa xubnihii hore u doortay qaarkood ay ku jireen tartankii maanta ee guddoomiyenimada guddigu waxa uu daha qaaday hardanka soo wajahan ee doorashada madaxtinimada heerkiisu sareeyo uma muuqato in dhammaadka natiijada la wada sugi doono Ciiro iyo Shuluq labaduba waa saaxiibo guddiga ku wada jiray balse kuleelka siyaasaddu waa gacmaha gadaal ka riixayay awoodo ishardinaya una muuqday tijaabinta dhammaan farahooda xagga siyaasadda ah Shuluq waxa uu taageero ka helay injineer Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ah madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor xubno ka mid ah midowga musharaxiinta kooxda la baxday waaye arag ee saameynta ku yeelan doonta kuraasta Galmudug taalla iyo Axmed Madoobe oo saacadihii ugu dambeeyay doonidaasi fuulay inkasta oo uu noqday kaalinta labaad ma guulaysan Liibaan guuldarradiisuna waxa ay dib ugu noqotay saaxiibadiisii gadaal taagnaa cidda ugu badan ee daanooyinku gaari doonaan waa midowga musharaxiinta xubno ka mid ah oo uu ugu horeyn doono Cabdikariin Xuseen Guuleed oo uu ka mid yahay kooxdiisa ololaha ra'iisul wasaare Rooble Qoorqoor kudladda waaye arag iyo musharaxiin si qarjoodiyo u baritaare oo ay ku jiraan xubnaha goofka caasimadda qaarkood macluumaad kale oo xasaasi ah oo aan ogaanay ayaa caddaynaya in ka hor intii aan doorashada la bilaabin codaynteeda ay jireen lacago codka lagu kala bedeshay oo ay bixiyeen garabka Liibaan xubin ka tirsan kaaliyayaasha ra'iisul wasaaraha dhinaca kalena qaybka ololaha Cabdikariin Guuleed ayaa la arkayay isagoo oo qaybta xamaamta ee goobta doorashada sii gelinaya 4 xubnood oo dhaqaale halkaas ay ku kala qaateen guulaystaha Maxamed Xasan Ciiro saaxiibadiisa xagga siyaasaddu waxa ay hadda haystaan guul siyaasadeed waxaana sida muuqato uu isku keenay laba garab oo aad isaga soo horjeeday labadii sano ee la soo dhaafay kalena ahaana nabad iyo nolol iyo Puntland waxaa sugaya imtixaan siyaasadeed oo ah sida labada dhinacba uu qancin lahaa inkastoo ay durba soo baxayso xog tilmaamaysa in saacadihii u dambeeyay hooyada federaalku muujisay saluug ay ka qabtay kadib markii xalay ay si cad u soo shaacbaxday in nabad iyo nolol ay si buuxda u garab taagan tahay taasina waxa ay keentay in isla xalay ay sharaxdo madaxtooyada Puntland Siciid Abshir oo ku xigeen ay u doonayso inuu noqdo sida ay caddaynayaan macluumaad cusub xubnaha midowga musharaxiinta qaar ka mid ah durba waxa ay durayaan dhexdhexaadnimada Ciiro waxayna u arkayaan dagaal adag oo ay la galeen soo laabashadiisuna ayaga ku tahay
nabar siyaasadeed oo aan si fudud aysan ku liqi karin. hadda waxaa loo dhaqaaqay doorasho. tareenka waxaa wada ka noqon doona Maxamed Xasan Ciro oo ilaa xilliga ugu dambaysa ee socodbixidda xildhibaanada doorkiisu xoogan yahay. isweydiintu waxa ay tahay sidee ayuu u maarayn doonaa dhammaan ficilada siyaasadeed ee ka imaanaya guddiga doorashada, musharaxiinta iyo saamaynta mustaqbalkiisa dambe ee siyaasadeed sida uu ku weelayn doono. dhacdo kale waa nabad iyo nolol gudaheeda iyo fiilada oo dhowr jiha u kala socotay, taasoo durba dadka siyaasadda falanqeeya ay ku sifaynayaan inay doonaysay dhinacna inaysan ku qadin oo dhammaan tartanka ay qaybo kala duwan ka soo gashay. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay. ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka, higaada iyo culumta kale islaamka. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.